Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Juba Institute of Professionals Pre-Intermediate English course. وبوقتين فاتصل سيشن قدس وانس بوك 1 وانا 10 كانت تضبيطنات وحولا كيالا بيج كونتر اللح. هذا ما ارجع كواد وحاول against وهرتوا preposition ما كان ده حاجة نحوها كسر جدوي عكس كده against كسر جدو أما دي كله مركز واحد كتير سترى والله to be against something is to be touching it واحد ما كتابته أو ولا أدور كتير سكر or opposed to it أما أتكسر جدو معارض كتير opposed to it against واحد كسر جدو معارض كتير وين وقتها صراحة they both leaned لما واحد كتير سدين against the wall دربي كتير سدين lean وكتير سشوا they both leaned against the wall labadooda waxay ku tirsadeen darbiga ku tirsadeen marka ereyga waa preposition waxa la waa meeleeye marka ereyga kale uu shaqeeyo kaliya macna masay to be against something is to be touching wax badan marka ku aad ku tirsato la ama taabato or opposed to it ama ka soo horjeedo ereyga kale marayna waa beach waa xeebta beach waxa la xeebta leedo beach the beach is a sandy or rocky place by the ocean. The beach is a sandy or mel baad leh or rocky ama dhagaxan leh. A beach is a sandy or rocky place wa mel dhagaxan leh ama baad leh sandy baad leh by the ocean or badweynta ku taal by the ocean or badweynta ku taal ocean marka badda weyn baa la badda. The little girl gabadha yarayd built waxay dhistay a sand castle guri qasri oo baad dhistay on the beach xeebta marka sand castle sand waa baadki castle waa qasri marka baadki qaab guri qasri amal sameeyay the little girl built waxay dhisay a sand castle on the beach ay ku dhistay eraygan kale marayna damage waa waxyeelayn waa verb damage waxa la waxyeelayn ama jabin wax marka jabiso ama halayn baa la to damage something is to break it waa inaad jabisaa marka erayga damage waxa la waxyeelayn jabin burburin waxa soo dhaw to damage something is to break it when I break it. The car was damaged in the accident. The car garigi was damaged waxa ku burburtay ama ku waxyeelowday in the accident shilki accident waa shil marka baabuurta waxa shil bala erayga waxa discover waa helid badana wax cusub ka hesho waxa discover waa verb waa ficil. To discover something is to find it for the first time. To discover something, what in a show, is to find it when I for the first time. So I discovered some new information or behind in this book. I discovered some new information or behind in this book. Emotion was drink. dareenka hal emotion ama sida marka xanaaqsan tahay faraxsan tahay murugaysan tahay an emotion dareenku is how you feel waa sida dareemayso anger is a common emotion anger aradu is a common emotion waa dareen common that we all feel anoo dhan dareeno wada xanaaqda barbar anger is a common emotion waa dareen common that we all feel on the mountain and dareen erayga waxa weeyaan fix waa hagaajin waxa marka hagaajiso waxa la isna marka hagaajiso ayaa xala fix to fix something is to make it work waa inaad ka shaqaysiiso adoo waxa marka hagaajiso waxa la fix shay la isna marka hagaajiso to fix something is to make it work waa inaad wixii ka shaqaysiiso my dad has many tools abay wuxuu haystaa qalab fara badan to help him fix oo ku caawiyo inuu hagaajiyo broken things waxyaabaha jajaban. My dad has many tools abay wuxuu haystaa qalab badan to help him oo ku caawiyo fix inuu hagaajiyo broken things waxyaabaha ka jajaban waxyaabaha ka halaysan erayga marayna waxa frank waxa la qof daacad ah oo si saraaxada wax u sheego frank waa qofka daacad ah ee badana waxa uu aaminsan yahay sheego ay waxa la frank. If you are frank, hadii aad tahay mid daacad ah oo wuxuu aaminsan yahay sheego, you are being very honest daacad baad. Marka frank badan waxa la qofka furfuran ee waxa uu aaminsan yahay sheego. If you are frank,
haddaad tahay mid frank ama daacada ama wax aaminsan uu sheego, you are being very honest, daacad baad tahay. The teacher had a frank discussion. Macalinka wuxuu ardada la yeeshay discussion frank ama discussion daacadnimo. The teacher had a frank discussion with her students. The teacher macalimadii had a frank discussion, wada sheekaysi ama wada xaajood daacadnimo ay la yeelatay with her students, ardadeedii. Erey kale marayna waxa identify. Identify wax inaad garato waay. Identify in la garto oo kale. Tusaale waxaad dhigataa the thief was identified. Tuugi waa la gartay. To identify something wax inaad garato is to be able waa inaad awoodo to name it inaad magacoodo. waxaa leedahay I used the fileka ayaan isticmaalay to identify his name, saan magaciisa u ogaado ama u garto. I used the fileka baan isticmaalay to identify his name, saan magaciisa u garto. ereyga kale waxaa weeyaan marayna waa island. Island waa jasiiro. Island hadhinaya island island waa jasiirad. An island is a land waa dhul in the middle of water oo biyo ku dhex yaala, jasiirad baa la. Japan is a group of islands. Japan, wadanka Japan is a group of islands, waa koox jasiirada ah. ereyga kale marayna waxa ocean badweynta la dhaha. Ocean waa badweynta. The ocean is all of the salt water that surrounds land. The ocean badweyntu is all of the salt water, waa dhammaan biyaha cusbada ah that surrounds the land ee dhulka ku wareegsan. Dhulkeena oo dhan buu ku wareegsan. The ocean badweyntu can make a powerful waves. Waxay samayn kartaa mawjado xoog badan. The ocean badweyntu can make waxay samayn kartaa powerful waves, mawjado xoog badan. Marka erayga powerful xoog badan weeye. Wavesna waa mawjadaha ama hirarka. The ocean can make a powerful waves. Waxay samayn kartaa mawjado ama hirar xoog badan bay samayn kartaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Fadlan casharadan dhagaysta oo akhriya.